markii aan ku beertay dhir gurigeyga waxyaabo badan ayaan ka maarmin aan kasoo iibsaday dukaanka. السلام عليكم ورحمة الله. maanta vloggeena wuxuu ku saabsan yahay faa'iidada beeraha. waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid maxaan videogan waqti ugu dhuminayaa, maxaa dhacay beer malihiye. beerta muhiim ma aha inaad beer adiga leedahay, gurigaaga ayaad beer ka samaysan kartaa, ha yaraado ha weynaado. marka daarabta wax badan inaad ka ogaatid, la soco videoga ilaa dhammaadkiisa. gurigeyga yar sidaan ugu beertay dhir. haddii aan ka hadlo markaa faa'iidada beerta wax yar oo hordhac ah. beerta waxay ku fiican tahay dhir inaad guriga ku beeratid. waxaad ka helaysaa oxygen nadiif ah, waxay ka caawinaysaa positive energy ku siiso sida mental health-gaaga, physicalkaaga u fiican tahay. waxay kaloo hoos u dhigtaa stresska iyo walwalka xanuuno badan oo waxay u fiican tahay lifestyle-ka ku imaada sida hadda dhiigkarka oo kale. dhiigkar hadaa qabtid waxaa lagu leeyahay stresska fogow. si aad stress uga fogaatid, ku mashquul waxyaabo farxad ku siinayo oo ku concentrate gareyn kartid. marka beertan aan maanta idin keenay saaxiibadeyda ayaa iska leh, ayaan usoo raacay. waa beer ay dadka dowladda ka kireyso, beer yara weyn waaye, laakiin qof walbaba in yar ayaa u go-an u kireystaa. intaas wax yar oo u kireysan waxa ay ku beeratay aad ay u badan yihiin iyo waxa ay ka faa'iido. waliba iyadoo waqti yar Norway wax la beerto oo qoraxdii jaaniska ah haysatiin. dadka Soomaaliya jooga ma haystaan, dadka wadamada sida Norway oo kala qabowga jooga. hadda waxaan u jeedaa waa kale waaye, waa wax aan ka bixaynin malaha. hadda keelka aad u badnaayba qayb dhan u haystay, aad u jeceshaa umaleynaa. waxaa ku yaalay mintigii oo nacnaca Soomaalida ama Carabi waaye umaleynaa nacnac. waxaa ku yaalay yaanyo, waxaa ku taalay kan bocor inuu yahay umaleynayaa. waa la ii sharaxay sanadka hore ahayd, waa ilaaway sorry vlogan sanadka hore duubay. marka faa'iidooyinka wallaahi shinida xataa u saaran malabkeeda la isoo siiyay oo aad u macaana. organic waa wax walba xagan ka baxayo. haddana mida aan ka helay ama gurigaaga haddaad dhir ku beeratid organic ku noqonaysaa. hadda mirahan ujeedin waa blueberry, miro aad u macaan waayay. waa dhadhaminayaa, aadaaba dhadhankooda uga helaysaan. dhan waa umaleyneen banaanka kuwan meelahan ka baxaysan inay u macaan yihiin. marka wallaahi waxaa waaye faa'iidada ee beerta leedahay. gurigaaga ku beero, ama haddii aad jaanis u helaysa magaalada meelaha ka baxsan oo kale waa beeran kartaa. faa'iido badan ayay leedahay. basal waa ujeedaa, basashi yaa ka fiicanba basal gurigaa ku beera ee soo goosta. dadka Soomaaliya jooga wallaahi waa qudaara iga go'day, waa imaan weyse iyaantan waxibla go-ana aad u maqlaa. laakiin fiiri qaatanayaayo wax walba gurigaa ku beero. quruxdii ay ku leedahay, boosaska waaweyn oo Soomaali dadka ay haystaan oo dhulka banaanka iska banaan yahay, oo caajiska dadka haayo, oo la wada daalan yahay, oo la jiijiifo. waxaa ku mashquuli kar sidaaba jira. haddana qurux indhaha u roon, qalbiga u roon, maskaxda u roon, meel walba u roon. maxaaba kuu diidaybo waaba handikaabnime inaad beeran weysid gurigaaga. beer adoo boos seeleysid maxaa dhacay? waxaa seefgareynaysaa money. adduunka lacagta wax ka fiican ma laha. lacagta seefgareeya oo gurigiina wax ku beerta. waxaa kale ka hela meeshan oo maalintii kasoo gurtay oona bartay oo aqoonin. intay soo bixin maxaa la dhahay corianderka, maxaa la dhahaa kabsar caleenta, intay soo bixin aan kasoo gurtay. caraf bay leedahay markaa guriga dhigatid. caraf kale walaa waxay leedahay nooc kale marka hadda xaafadeeda imaanay gurigeeda isaga xataa derbiga dhan wada beer waaye. guriga dhan beeray ka dhigatay. qof weyn waa wallaahi. tan gurigeeda sidii ugu wareejisay beer u qurxisay anaa yaaba isdhaha waaw
maxay tahay handikaabnimadan ku haysato aniga marka waxaan ka bartay gadaal waa arki doontiin waa idiin sharxi doonaa inaan beerto marka hadda waan quraacaneynaa brunch noo sameyso waayo xaggaan igu soo dhaweysa gurigeeda ayaa u mahad celinayaa marka la socdaa videoga intiisa kale iyo aniga waxaan kasoo faa'iiday iyo beertaan guriga ku beerta saakay waxaa idinla qaybsanayaa geedaha aa ku beerto ama qudaarta aa ku beerto guriga kan waa baby leaf ka mid kala dhaho ansalaatooyinka yariiska marka hadeertaan wuxuu qaatay inuu intaan la ekaado 3 week qiyaas ahaan dhaqso igu baxay xagana waxa waaye ansalaato waxa waaye kabsar caleen ayadana waxa dhacday waxay qaadatay waqti yar ayadana qaadanaysaa ee kugu soo baxaysaa marka muhiimadda waxa waaye biyo inaa waraabsatid leh biyo siisid sida anaga u noolnahay ayagana u nool yihiin biyo rabaan ay ku noolaadaan xaggan asagana waa nooc ka mid ah kan asagana waxaa waaye spinachki waaye aad ma u waaweynaan asaga waqti ayuu qaadanayaa xogo yar marka waa kaasa maalin walba biyaha ma siiyi laakiin qorax say u jirtay kuleel say u jirta mar walba waa inaa adiga fiirisaa biyo may u baahan tahay mise ma u baahno marka waa kaasa waxaad la qaybsanayay dhirta guriga dhexdiisa igu baxdo waxay ku siinaysaa ay ku fiican tahay dhirta oxygen ayaa ka helaysaa waa caafimaad oxygen fresh ah gurigaaga ku qaadanaysaa oo dhirta ka hesha marka waa kaasa kan hadda ma sugi kari inta oo ka goran doono marka ka faa'iideysta guriga ku beerta dhirta